assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. muuqaalka filimku wuxuu ku bilaabanayaa gabar yar oo la yiraahdo Eve. waxay ku sugan tahay saldhigga booliiska iyadoo aamusan oo dhaawac ah. waxay la murugoonaysay qoyskeeda. gacanteeda waxaa ku jira bombalaheeda ballerina. markaas ayuu muuqaalka filimku wuxuu u wareegayaa xusuus hore, halkaasoo aan ku aragno Eve oo la joogta aabaheed jasiirad cidlo ah. labadooduba waxay halkaas uga dhuumanayeen kooxdiimeed halis badan. waxaa la ogaaday in qoyska Eve oo dhan ay horey uga mid ahaayeen kooxdaas, aabaheedna uu ka caawinayay si ay uga baxsadaan oo uu u badbaadiyo. xilligaas xaaskiisa iyo gabadhiisa weyn ayaa lagu dilay gacanta kooxdiimeedka. inkastoo ay taa dhacday, haddana khatartu weli way taagan tahay, maxaa yeelay kooxda weli way ku raad joogaan iyagoo ku eedaynaya khiyaano, waxayna rabaan inay dilaan. intay xaaladdu ahayd mid kacsan, gurigooda weyn ayaa la soo weerarayaa. ragga kooxdiimeedka ayaa marka hore dilay waardiyayaashii bannaanka joogay, kadibna gudaha ayay u galeen. Eve aabaheed wuxuu hore maskax ahaan ugu diyaargaroobay weerarkan. wuxuu si degdeg ah dagaal ula galay kuwa soo galay villada, wuxuuna dilay tiro badan oo ka mid ah. waxaa soo baxaysa in Eve aabaheed uu ahaa dilaa xirfad sare leh. intii ay dagaalamayeen wuxuu faafinayaa qiiq si uusan u muuqan, wuxuuna markaas qol kale kula dhuumanayaa Eve. muddo yar kadib xubno kale oo badan oo kooxda ah ayaa yimid, waxaana hogaaminayay hogaamiyahoodii Chancellor. Eve aabaheed wuxuu raggii u dilayaa mid mid, laakiin raggu aad bay u badnaayeen. ugu dambayntiina waa la qabanayaa. hogaamiyuhu wuxuu istaagayaa hortiisa wuxuuna ku yidhi, marka hore waxaad guursatay gabar kooxdeena ka tirsanayd, kadibna waadna khiyaamaysay. waxaad mudan tahay ciqaab. xaaskaaga iyo gabadhaada weyn waan dilday, laakiin haddii aad rabto inay Eve noolaato, naftaada dil. haddii kale adiga iyo gabadhaadaba waan idin dili doonaa. Eve aabaheed aad buu u jeclaa gabadhiisa, sidaas darteed wuxuu u diyaargaroobay inuu isdilo. laakiin markaas ayay Eve oo qarsoonayd soo baxaysaa kadib markay maqashay codka aabaheed wuxuu tuurayaa bastooladii, wuxuuna dib u bilaabayaa dagaalka. hogaamiyihii wuu cararayaa intuu jahwareer ku socday, dagaalkiina wuu sii socday. mid ka mid ah kooxdiimeedka ayaa doonayay inuu midi ku dilo Eve aabaheed, laakiin Eve ayaa gadaal ka timid, waxayna toogatay ninkii taasoo dishay. markaas kadib Eve waxay la baxsatay aabaheed dhaawacmay. markay bannaanka u soo baxeen, qarax weyn ayaa dhacay. Eve aabaheed ayaa hore bambooyin badan ugu diyaariyey gudaha guriga. qaraxaasina wuxuu dilayaa dhammaan xubnihii kooxdiimeedka ee gudaha ku jiray. hogaamiyihii oo sidoo kale baxsad ahaa ayaa u qaatay in Eve iyo aabaheed ay ku dhinteen qaraxa, wuuna ka tegayaa jasiiradda. Eve aabaheed xaaladiisu aad bay u xumayd. Eve waxay fadhiisatay xeebta iyadoo sugaysa caawimaad. aabaheed wuu ka cudur daaranayaa, kadibna wuxuu ku dhimanayaa halkaas. waqti yar kadib booliiska ayaa imaanaya, waxayna helayaan Eve oo dhaawac ah. saldhigga booliiska ayayna keenayaan. waa isla muuqaalkaas bilowga filimkana la tusay. muddo yar kadib nin ayaa u yimid, wuxuuna u sheegay Eve, waxaan ahay aabbaha adeerkii. aabbaha wuxuu ahaa qof fiican, wuxuu jeclaa inuu kuu sameeyo nolol wanaagsan. hadda aniga ayay waajib igu tahay inaan rumeeyo rabitaankiisa. markaas ayuu Eve ka kaxeeyey saldhigga, wuxuuna geeyey masrax ay macallimad carruurta ku barayso ciyaarta ballerina. markii dambe Eve waxaa la baray agaasimadda xarunta. agaasimaddu waxay ninkii weydiisay su'aal la yaab leh, Eve ma og tahay wax walba oo ku saabsan hooyadeed iyo aabaheed? ninkii wuxuu ku jawaabay maya. agaasimaddu waxay Eve u sheegtay, aabbaha wuxuu carruurnimadiisii oo dhan ku qaatay halkan, waxaana filayaa adigana inaad halkan ku raaxaysan doonto. Eve way ogolaatay inay halkaas degto. ninkii wuxuu markaas Eve siiyey shilin, wuxuuna ku yidhi, mar kasta oo aad ii baahato diyaar baan ku ahay. kadibna wuu ka tegayaa. intaas kadib Eve waxay la kulmaysaa macallimadii, waxayna u sheegaysaa in halkan ay ka jiraan laba tababar, mid ciyaarta ballerina ah iyo mid dilka dadka ah. iyadoo tusaale u soo qaadatay shilinkii ay Eve haysatay, ayay tiri, shilin walba wuxuu leeyahay laba weji. qofku waa inuu bartaa sida loo dagaalamo iyo sida looga baxsado xaaladaha khatarta ah. Eve waxay ka heshay falsafadan, waxayna ogolaatay inay qaadato labada tababarba. 12 sano kadib, muuqaalku wuxuu u wareegayaa Eve oo samaynaysa ciyaarta ballerina, oo ah meesha ay wax walba ka bilaabmeen. tababarkeedu aad buu u adkaa ilaa ay cagaha dhiig ka yimaadeen, balse weli way sii wadatay tababarka. macallimadii ayaa u sheegtay inay cagaha iska daaweyso. intay cagaha iska daaweynayso, saaxiibteed ayaa weydiisay inay hakiso tababarka. laakiin Eve waxay ku jawaabtay, waxaan rabaa inaan noqdo ciyaaryahanka ballerina ugu fiican sida adiga. gabadhii waxay ku tiri, adiga mar hore ayaadba noqotay dilaa fiican, marka waa inaad xoogga saartaa tababarkaas. markii dambe waxaana la tusay goobta tababarka dilka, halkaasoo ay la dagaalamayeen wiilal badan oo ay baranayeen isticmaalka dhammaan noocyada hubka. maalintaas Eve waxay la dagaalamaysay wiilal badan, laakiin way guulaysan weyday. macallimadeeda waxay weydiisay, maxaad samaynaysaa maanta? Eve waxay tiri, dhammaantood way iga xoog badan yihiin. macallimadeeda waxay tiri, sababta aad u guuldaraysatay ma aha inaad tahay qof daciif ah, balse sababta dhabta ah waa inaad mar horeba aqbashay guuldarada adigoo eegaya wiilasha xooggooda, mana aadan aaminin naftaada. markay maqashay hadalkaas, Eve waxaa ku kacay dhiiranaan cusub, waxayna bilowday inay guulaysato xitaa rag aad uga xoog badan, iyadoo kalsooni buuxda ku qabta nafteeda. tababarku si fiican ayuu u socday. 2 bilood markay ka soo wareegatay, Eve waxay ogaatay in saaxiibteed laga ceyriyey tababarkan. waxay aaday oo la hadashay agaasimadda. agaasimaddu waxay ku tiri, kuwa aanan noqon karin dilaayaal fiican waxaan u dirnaa inay bartaan ciyaarta ballerina.
iyadoo ma ahayn dilaa wanaagsan sida adiga oo kale. Eve waxay weydiisay, maxaa dilaayaasha wanaagsan shaqo loo siin waayey? Aniguna waxaan u malaynayaa inaan ahay dilaa wanaagsan oo shaqo mudan. Agaasimadu waxay ku tiri haye, laakiin marka hore waa inaad ka gudubtaa tijaabooyin. Tijaabadii ugu horeysay Eve waxaa la fadhiisiiyey gabar kale horteeda. waxaa la ogaaday in gabadhaasna ay ahayd ardayad ka tirsan xarunta tababarka Ruuska Roma. Waxay ahayd gabar la mid ah Eve oo halkan wax ka baranaysay, laakiin waxay dayacday arrimo muhiim ah. sidaas darteed waxaa lagu amray Eve inay gabadhaas disho. Markaas ayaa gambaleel ku yeeray, waxaana labadoodii la siiyey amar ah inay bastooladahooda diyaariyaan. Eve waxay si dhaqso leh u diyaarisay bastooladeedii, laakiin Eve ma aysan helin geesinimo ay ku disho gabadhaas. Eve intay isla hadlaysay, gabadhii kale waxay isu diyaarinaysay inay Eve disho. ka hor intaysan dilin Eve waxay xusuusatay xilligii ay dishay ninkii damcay inuu aabaheed dilo. Markaas ayay isku soo urursay geesinimadeedii hore, waxayna dishay gabadhii iyadoo nafteeda badbaadisay. waxaa mar kalena la tusayaa dilaa weyn oo la yiraahdo John oo ku sugnaa xarunta Ruuska Roma. Eve horey ayay u maqashay magaciisa, markaas ayay u tagtay waxayna ku tiri, adigu waxaa tahay dilaa weyn ee isii talo si aan u noqdo dilaa adiga oo kale ah. John wuxuu ku yiri, mar hore ayaadba noqotay dilaa, waana arkaa, laakiin haddii aad war iga maqlayso ka carar meeshan. markay maqashay hadalkaas, Eve waxay weydiisay su'aal kale, adigu maxaad u carartay? laakiin John wuu ka tegayaa isagoo aan wax jawaab ah bixin. markii dambe Eve ugu dambeyn waxay heshay shaqadeedii ugu horeysay. waxaa la siiyey howlgal ay ku badbaadinayso gabar uu doonayay nin burcad ah inuu ku dilo meel kalaab ah. Eve looma ogolayn inay qof disho, sidaas darteed waxaa la siiyey xabado caag ah. howlgalka Eve loo diray wuxuu ahaa imtixaankii ugu dambeeyey ee lagu ogaanayay inay u qalanto inay noqoto dilaa iyo in kale. haddii ay ka soo baxdo waxay noqon doontaa dilaa rasmi ah. hadda Eve waxay timid isla baarkii ay gabadhaas ku badbaadin lahayd. ka hor intaysan waxba u sheegin gabadha, waxay aragtay in burcadii ay timid. waxay u tagtay burcadii oo waxay ku tiri, gabadhan iskaga taga, haddii kale waxaad ka shalayn doontaan arrintan. laakiin ninkii burcadka ahaa ayaa iska riixay Eve oo u dhaqaaqay gabadha, iyadoo ragga burcada ahna bilaabeen dagaal ay la galeen Eve. Eve waxay si geesinimo leh ula dagaalantay raggaas iyadoo adeegsanaysa xabado caag ah, waxayna dhaawacday rag badan. markii ay dhammaan ragga garaacday, waxay u tagtay burcadkii oo isku dayaya inuu gabadha ka kaxeeyo baarka. Eve ayaa gacanta gabadha ka fujisay burcadkii, halkaasna dagaal weyn ayaa ka bilaabmaya. burcadku wuu ka xoog iyo xeelad badnaa sidii ay Eve u malaynaysay. wuxuu bilaabay inuu gacanta sare yeesho, laakiin Eve ayaa si degdeg ah u garaacday, waxayna xitaa ku dhufatay xabado caag ah. ugu dambayntiina waxay ka tegaysaa isagoo nool, naxsan, kuna dhejisay derbiga. waxay badbaadisay gabadha oo ay meesha kala tagtay, halkaasna waxay si rasmi ah uga gudubtay imtixaankii ugu dambeeyey ee dilaanimo. ugu dambayn Eve waxay noqotay dilaa rasmi ah oo ka tirsan Ruuska Roma. calaamadii taatuuga ahayd ee ku taalay jirka aabaheed ayaa iyadana lagu xardhay. markaas kadib waxaana la tusay in Eve ay fulisay howlgal kale oo ay ku dishay nin. inta lagu guda jiray dagaalka, Eve lafteedu way dhaawacantay. si geesinimo leh ayay mididii uga saaraysaa jirkeeda, kadibna sawirkii ninka ay dishay ayay u diraysaa macaamiilkeeda, waxayna helaysaa lacag badan. haddaba intay goobta ka tegayso, waxaana la tusayaa in Eve hore ula dagaalantay waardiyayaashii ninkan oo ay iyagana wada dishay. intii ay goobta ka baxaysay, waxay mar kale dagaal la gelaysaa nin kale kadib markii ay isku dhaceen baabuurtooda. ninka kale wuxuu u muuqday nin xirfad leh sida dilaayaasha oo kale. inkastoo ay Eve si dhaqso leh ula dagaalantay, haddana dagaalku wuu dheeraaday. ugu dambayntiina Eve ayaa dilaysa ninkaas. markii ay dishay, waxay aragtay calaamad ku taalay gacanta ninka, taasoo ahayd isla calaamadii ay ku aragtay dadkii aabaheed dilay carruurnimadeedii. Eve waxaa gashay su'aal, yay ahaayeen dadkaasi? Eve waxay go'aansatay inay ogaato cidda ay yihiin kooxdaas. waxay goosatay gacanta ninka, waxayna u tagtay agaasimada Ruuska Roma. markay tustay gacantii ninka, agaasimadu waxay ku tiri, maxaad rabtaa? Eve waxay tiri, dadkan waxay dileen aabbahay, waxaana rabaa inaan ka argoosto. agaasimadu waxay ku tiri, ma doonayo inaad dabagasho dadkaasi, waayo waa koox diimeed halis badan. hooyadaa waxay ka mid ahayd kooxdaas. dhammaan xubnaha kooxdaas waa dilaayaal anagana la mid ah. waxaana naga dhexeeya heshiis ah in dilaayaasha Ruuska Roma iyo koox diimeedka aysan isweerari karin midba midka kale. Eve hadal kuma celin. waxay tegaysaa hotel uu ku sugnaa ninkii isla bilowgii filimka Eve u keenay Ruuska Roma, waxayna weydiinaysaa macluumaad ku saabsan kooxda, laakiin ninkii wuxuu ku dhahayaa, ha samayn arrintan, dadkaasi waa kuwo khatar ah. Eve waxay si degan ugu celinaysaa lacagtii birta ahayd ee uu horay u siiyey, waxayna ku dhahaysaa, waxaan u baahanahay caawimaadaada. maadaama uu ninkani u ballan qaaday Eve inuu caawin doono mar kastoo ay u baahato gargaarkiisa, haddaba dhab ahaantii wuu caawin doonaa. maadaama la gaaray wakhtigii uu caawin lahaa,
ninku diyaar buu u ahaa inuu Eve caawiyo markaasuu wicitaan samaynayaa oo uu Eve siinayaa xogtii ninka kadib markuu helay wuxuu sheegay in ninkani uu yahay wiilka hogaamiyaha kooxdiimeedka magaciisana waa Daniel maanta Daniel wuxuu degan yahay hotelkan waad la hadli kartaa oo waad ogaan kartaa aabihiis iyo kooxdiisaba hadda waxaan ogaanay inuu qof dul dhigay lacag dhan $400,000 si loo dilo Daniel waxaana hotelkan lagu dhex qariyay gacan ku dhiglayaal badan si ay u dilaan waxa kale oo jirtay gabar la oran jiray Lena oo iyaga ka mid ah hadda Eve waxay qolka Daniel ka gelaysaa albaabka dambe Daniel ayaa qori ku fiiqaya isla markuu arko iyada laakiin Eve waxay ku dhahaysaa halkan uma imaanin inaan ku dilo waxaan rabaa inaan ogaado halka uu joogo aabaha sababtoo ah aabaha ayaa dilay aabahay waxaana doonayaa inaan ka aargoosto halkan Daniel ayaa sidoo kale ku dhahaya aabahay wuxuu ka tirsan yahay kooxdiimeedka anigana sidoo kale waxaan ka cararayaa kooxdiisa sidaas darteed dad badan baa idaba jooga inay idilaan laakiin waxaan rabaa inaan nolol xor ah kula noolaado gabadhayda dadkan ayaa wada hadlayay markii la soo weeraray qolka Daniel waxaana dad badan ay garaaceen Daniel iyadoo la jirta Daniel Eve sidoo kale waxay taageeraysaa Daniel waxayna bilowday inay la dagaalanto dhammaan burcadii halkan Daniel wuxuu Eve weydiisanayaa caawimaad suu u badbaadiyo gabadhiisa intay Eve soo dejinaysay gabadha yar kadib markay badbaadisay waxaa horteeda yimid ilaalo kale oo badan kuwaasoo Eve ay mid ula dagaalantay dhanka kale waxaana la tusayaa in dadkii Daniel la dagaalamayay ay ugu dambeyntii toogteen Daniel halkan qof ayaa sidoo kale dhabarka ka soo weeraray madaxa Eve oo miyir beeliyay isla goobta ayaa lagu qabtay gabadhiina waa la soo kaxeeyay oo loo geeyay hogaamiyihii isla ururkii Chancellorka Eve markay soo miyirsatay waxaaba horteeda taagan dad badan waxaana la socday dad badan oo sugayay xukun ciqaab waxaana lagu ciqaabayay inay ka dagaalameen hotelkan laakiin Eve waxay tiri anigu halkan uma imaanin inaan qof dilo waxaan u imid inaan la kulmo Daniel oo kaliya markay taas maqleen dadkii kale ee iyada la taagnaa waa la dilay oo iyadiina waa la sii daayay intaa kadib Eve waxay u tagaysaa nin kale oo si sharci daro ah hub u siin jiray dadka gacan ku dhiglayaasha ah waxay ogeyd in ninkani uu wax badan ka ogaan karo kooxdiimeedka laakiin ninkani wax badan ugama uusan sheegin ururka intay hubinaysay hubka dad badan ayaa soo weeraraya waxayna ahaayeen dadkii ururdiimeedka say nafteeda u badbaadiso Eve waxay bambooyin ku weerartay dadkii ka tirsanaa ururka oo ay ku wada qarxisay bam Eve iyo ninkii lahaa dukaankan hubka way ka badbaadeen weerarkan waxaan ogaanay in mulkiilaha bakhaarka hubka uu isna aad u neceb yahay ururkaas oo uu doonayay inuu laayo xubnaha ururkaas laakiin sidoo kale wuu ka baqayay ururkaas balse markuu arkay xamaasada Eve wuxuu u sheegayaa meesha ay degan yihiin ururka Eve-na way tagaysaa isla markiiba iyadoo aan waqti lumin intay jidka ku sii jirtay waxaa soo wacaysa agaasimada waxayna uga digaysaa inaysan ku ciyaarin ururkaas cadowgooda ah laakiin Eve way iska dhigatiraysaa hadalkeeda oo waxay tagaysaa magaalada kooxdiimeedka isla markay tagto magaalada waxay ogaanaysaa in qof kasta oo ku nool magaaladan uu xubin ka yahay ururdiimeedka Eve ayaa marka hore gelaysa gudaha cafeteria halkaasoo ay ku aragtay isla boombalihii qoobka ciyaarka ee ballerina oo aabaheed hadiyad ahaan u siiyey yaraanteedii xasuusaheeda waxay la xiriiraan meeshan iyadoo intaasoo dhan isha ku haysa ayay si lama filaan ah u arkaysaa in dadkii oo dhammi ay bilaabeen inay meesha ka baxaan nin ayaana soo weeraraya kadib markuu u soo dhowaaday waxay la dagaalantay ninka si kastaba ha ahaatee ninkaasi aad buu uga xoog badnaa iyada intii ay dagaalamaysay ayay ugu dambeyntii gacanta ku dhigaysaa bastoolad taasoo ay ku tooganayso ninka kadib cunto kariyihii hoteelka ayaa sidoo kale bilaabaysa inay Eve ula dagaalanto sidii dagaalyahanad xirfad sare leh dad badan ayaa midba midka kale u imaanaya si ay ula dagaalamaan iyada waxayna Eve ka soo baxaysaa meesha iyadoo dhammaantood wada dishay nin siikh ah oo daawanayay dagaalkaas ayaa markiiba u sheegaya hogaamiyaha inay Eve weli nooshahay haddaba gabadha Lena la yiraahdo ayaa loo dirayaa inay soo qabato Eve waxay ka garaacaysaa dhabarka waxayna u keenaysaa hogaamiyihii markay Eve soo miyirsato ayaa hogaamiyaha weydiinaya yaa tahay adiga maxaad si rabtaa miyaadan ogeyn in heshiis naga dhexeeyo ururka Ruuska Roma ma tihiin kuwana waxyeelayn kara markaas ayay Eve ku jawaabaysaa anigu kama tirsanin Ruuska Roma balse waxaan ahay xubin ka tirsan kooxdiimeedkan waxay ka yaabisay hogaamiyaha markay sheegtay magacyada hooyadeed iyo aabaheed hogaamiyuhu wuxuu u haystay inay Eve dhimatay sanado ka hor laakiin hadda waxay fadhidaa hortiisa si toos ah iyadoo nool hogaamiyuhu wuxuu u moodayay inay Eve u timid inay badbaadiso gabadha Daniel laakiin hadda wuxuu gartay inay arintu ka weyn tahay arintaas Lena oo yaaban ayaa hogaamiyaha weydiisay yay tahay gabadhan maxay yihiin magacyada ay sheegayso hogaamiyuhuna wuxuu uga waramayaa in Eve ay u timid inay ka argudato dilka waalidkeed isla markaasna ay tahay walaasheed horeyna uga mid ahayd kooxda Lena aad ayay ula yaabtay arintaas intay weli wada hadlayeen ayaa Eve waxay si kadis ah u dilaysaa dhammaan dadkii ka baxaysaa guri kalena gelaysaa Lena si degdeg ah ayay uga daba baxaysaa si u joojiso Eve waxay Lena ku qabanaysaa bastoolad markaasay Lena ku tiri anigu waxaan ahay walaasha ka weyn Eve waxay tiri sideen ku rumaysan karaa arintaas aniga iyo aabe waxaan ogaanay in sanado ka hor lagu dilay Lena ayaa tiri maya
waxay dileen hooyadeen oo keliya anigu weli waan noolahay iyaga oo hadlaya dadkii dibadda joogay ayaa hogaamiyaha weydiinaya in labadooda la dilo hogaamiyuhuna wuxuu ku jawaabayaa haa kadibna gurigii ayaa lagu qarxinayaa bam weerarkaas Lena si xun ayay ugu dhaawacantay dhaawaceeduna wuxuu ahaa mid dilaa ah markay Eve u timid Lena waxay uga tegaysaa fariin ahayd inay u argudo waalidkood Eve iyadana way dhaawacneed balse hadalka Lena ayaa wuxuu ku abuuray geesinimo cusub waxay qaadatay seef meesha taalay waxayna go'aansatay inay baxdo markaas ayaa dilaayaal badan yimaadeen Eve ayaana kaligeed la dagaalantay gacmaha goysay dhuunta jartay caloosha ka muday qof kastana dishay iyadoo hore u socota ayay ooyeysaa xataa hadda hogaamiyaha ayaa aad uga baqaya Eve sidaa darteed wuxuu la xiriirayaa agaasimada Ruuska Roma wuxuuna ku dhahayaa haddii aad rabto in heshiiskeena uu sii jiro gabadhan meesha ka saar ka hor 12 habeenimo haddii kale xaaladdu way xumaan doontaa agaasimadu si fiican ayay u ogeyd in hanjabaadani aysan sahlanayn sidaas darteed waxay abaalmarin dul dhigaysaa Eve oo ay siinaysaa John dilaaga ugu wanaagsan Ruuska Roma daqiiqado gudahood John ayaa imaanaya markaas ayaa hogaamiyuhu dadkiisa ku wargelinaya in labada dilaa ay soo galeen deegaankooda wuxuu amrayaa in haddii ay arkaan gabadha ay dilaan laakiin aan wiilka la taaban markuu John ka hor yimaado Eve wuxuu ku dhahayaa fursad baan ku siinayaa ka bax halkan ka hor 12 habeenimo haddii kale si khasab ah baan kugu dili doonaa wuxuu iska dhigayaa inuu la dagaalamayo si dadka kale ay u arkaan markasta wuxuu ugu celcelinayaa waxaad haysataa fursad noloshaada badbaadi oo bax laakiin Eve waxay ku dhahaysaa ma bixi doono anigoo aan ka aargudan dilkii aabahay hogaamiyaha ayaa dilay aabahay anna waxaan doonayaa inaan dilo oo aan dagaalka dhameeyo John wuxuu arkay in weli 28 daqiiqo ay ka harsan tahay 12 habeenimo wuxuuna ku yiraahday waxaad haysataa 28 daqiiqo haddii aad shaqadaas ku dhamayso waqtigaas waan ku dhaafi doonaa haddii kale se waa khasab inaan ku dilo Eve si aamusan ayay uga baxaysaa halkaas iyadoo sii maraysa albaabka dambe intay ku sii socoto hogaamiyaha waxay sii dilaysaa waardiyaal afka ka xiraysaa madaxa ka garaacaysaa dadka oo tooganaysaa cidii ka hor timaada markaas ayuu hogaamiyuhu garanayaa inuu John khiyaamay isaga ayaa sii daayay gabadhaas hadda doonaysa inay disho hogaamiyaha haddana wuxuu magaalada ku amrayaa in hadda ha ahaato wiil ama gabar qofkii la arko la dilo dad badan ayaa hadda isku dayaya inay dilaan Eve laakiin Eve dhammaan way wada dilaysaa ugu dambeyn waxay gaaraysaa meel hub badan yaal halkaas waxay ka helaysaa qoriga dabka kaasoo hadda shaqadeedii u fududeeyay waxay u sii socotay hore iyadoo cid walba gubaysa kadib waxay la kulmaysaa nin kale oo isaguna wata qoriga dabka tuura ka hor intuusan iyada gubin Eve waxay jebinaysaa muraayad waxayna gudaha ugu boodaysaa dhisme say isku badbaadiso halkaasna waxay ka helaysaa tuubada biyaha dabdemiska waxayna isticmaalaysaa cadaadiska biyaha say ninka uga adkaato sidoo kalena waxay ka daminaysaa qorigii dabka tuurayay ugu dambeyn tuubadii biyaha ayaa dhamaanaysa Eve-na way dhacaysaa ninkii ayaa hadda isku dayaya inuu dilo laakiin John ayaa dhinaca kale ka soo tooganaya qoriga dabka tuura kaasoo u qarxiyay sida bam oo kale waxaana sidaas ku dhintay ninkii Eve-na ku badbaaday Eve waxay ogaatay in John uu ahaa kan badbaadiyay sidaas darteed waxay ugu mahad celinaysaa si tilmaan ah hogaamiyuhu wuxuu garwaaqsaday in badbaadadiisu aysan ahayn mid suurtagal ah sidaas darteed isagoo wata gabadhii wiilkiisu dhalay ayuu isku dayayaa inuu ka baxo magaalada laakiin ka hor intuusan gaariga kala bixin magaalada Eve ayaa hor istaagaysa waxayna tooganaysaa daraawalkiisay u joojiso markaas ayay Eve ku tiri hogaamiyihii anigu raggaagii dhammaan waan dilay hadda adiga mooyee qof kale ma doonayo inaan dilo John wuxuu arkay in 2 daqiiqo oo kaliya ay ka harsan yihiin 12 habeenimo wuxuuna garwaaqsaday in laga yaabo in laga rabo inuu dilo Eve laakiin ka hor intuusan waxba samayn Eve ayaa toogatay hogaamiyaha oo dishay markay saacadu gaartay 12 habeenimo John wuxuu wicitaan ka helay agaasimada waxay weydiisay ma dishay Eve John wuxuu ku jawaabay uma baahnayn waayo dagaalkii wuu dhamaaday Eve ayaa dishay hogaamiyihii markaas kadib Eve waxay halkaas ka baxday iyadoo wadato gabadhii Daniel muuqaalkuna wuxuu u wareegayaa waqti dambe waxaan ogaanaynaa in Daniel uu weli nool yahay Eve waxay u geysay gabadhiisa waxayna sidaas ku fulisay balantii ay la gashay Daniel maalmo yar kadib waxaana la tusayaa Eve hoolka ciyaarta ballerina halkaas waxay u timid inay daawato saaxiibteedii yaraanta oo ciyaarta ballerina soo bandhigaysa dhammaan dilaayaashii meesha fadhiyay waxay helayaan fariin sheegaysa in lacag weyn la duldhigay Eve si loo dilo Eve-na sidoo kale fariintaas way heshay sidaas darteed si aamusan ayay meesha uga baxaysaa filimku wuxuu ku dhammaanayaa su'aashan ma noolaan doontaa Eve mise way dhammaan doontaa muuqaalku halkan ayuu ku egyahay fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb kulanti dambe oo aad u xiiso badan mahadsanid